Soomaalidu waxay aad u qiimeeyaan fanka iyo fanaaniinta tan iyo barisimaadkii Xasanow Eedan Samata. Haddaba daawade maxaa kala socotaa sababta rasmiga ah ee Guuleedsinba uga taageeraha badan yahay fanaaniinta dambe? Guuleedsinba oo 3 sano u dambeysay shitay maqaayada YouTube-ka isla markaana la soo baxay iskoor ku cusub fanaaniinta kale ee dhigiisa waxa uu fankiisu soo maray marxalado kala duwan oo u baahan in mid loo dul istaago. Guuleedsinba wuxuu fankiisa ka soo bilaabay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga halkaas oo muddo socod barad ku ahaa. Heestiisii ugu horeysay oo isla kala jiido waxay ahayd hees Koobiya oo ku luuqay boqorkii codka Allah u naxariistay Maxamed Saleebaan Tubeec. Sanadkii 2010 ayuu Guuleedsinba si ku celis tijaaba u soo qaaday heestaasi. intaasi wixii ka dambeeyay Guuleedsinba waxa uu geed dheer iyo mid gaaban u koray sidii uu horumarin lahaa fankiisa. Maran aan badnayn oo fara ku tirisa ayuu booqday fagaaraha ay ku kulmaan fanaaniinta reer Ankara ee xilliga Turkiga ku sugnaa, laakiin nasiib darro ma jirin wax horumar oo la kulmay waxaa yeelay xilliga fanaaniin caan oo isaga garab weyn siisa kuma aysan sugnayn wadanka Turkiga. Sanadkii 2012 Guuleedsinba ayaa gilgilay xaflad aroos Turkiga ka dhacday kadib markii uu qaaday 2 heesood oo isagu uusan lahayn laakiin si ku celisa u qaaday mar kale, waxaana heesahaasi kamid ahaa Guuleedsinba waxa uu noqday quraanshadii 2 jeer dhagaxa ka soo dhacday ee mar saddexaad ka guuleysatay tan iyo markii uu qaab tahriiba ku soo galay qaaradda Yurub waxa uu guul weyn ka soo hooyay fankiisa. Heestiisii ugu horeysay ayaana gaartay guud ahaan Soomaalida ku nool daafaha caalamka. Sanadkii 2017 ayuu mar qura daaqada soo qabsaday. kadib maalmo kooban oo ay heestani hawada ku jirtay fanaanada Farxiyo Kabayira ayaa qaab caaya filcilin uga bixisay heestaasi. Markii wax laga weydiiyana waxa ay Simba ku eedeysay inuu 6 bilood barta Facebook ku caayi jiray intii uu ku sugnaa Turkiga. Page lagu magacaabo Willow fanaaniinta oo adminka ahaa Guuleedsinba ayay sheegtay in maalin walba lagu soo qori jiray qoraal xun oo aysan u qalmin in laga qoro iyada. Guuleedsinba oo xilligaasi ahaa fanaan magaciisa hooseeya ayaa ka gaabsaday inuu ka jawaabo eedeyntii loo jeediyay, waxaana dagaalka isaga iyo Kabayira ku dhamaaday jawaab la'aan. Guuleed waxa uu garab weyn ka helay walaalkii Nabil Buule oo ah laxamiista da'yar heesihiisa oo idil ayuuna ku laray laxan dhaafay xadkii loogu talagalay. Taasina waxay keentay inuu fursad u helo xulashada laxamada cajiibka uu sameeyo walaalkii Nabil Buule. Guuleedsinba caqabadaha ugu weyn waxa uu kala kulmay channelada YouTube-ka ee soo saara heesaha Soomaalida, wuxuuna si gaar ah fooda isku dareen cameraman Haatif Cabdi oo ah ninka kaliya ugu duubista qurxoon qaaradda Yurub. Isfahan waa ka dhaxdhashay isaga iyo Guuleedsinba waxa uu bartiisa YouTube ee Haatif Digital Studio ka xadiday oo private ka dhigay heestii gufaaca ee Guuleedsinba oo xilliga isbuuc hawada ku jirtay, inkastoo markii dambe dacwo iyo calaacal dheer kadib uu hawada dib ugu soo celiyay. intaasi kadib Guuleedsinba ayaa baadigoob u galay sidii uu heli lahaa channel YouTube leh subscription. ugu dambeyntiina waxa uu ka mid noqday fanaaniinta YouTuberiska ah. dad badan oo falaqeeya arrimaha fanka ayaa isweydiiyay sababta rasmiga ah ee Guuleedsinba uga shacbiyada badan yahay fanaaniinta dhigiisa. Warbaahinta Qalsooni Media oo baadigoob u gashay su'aashaas ayaa soo ogaatay in sababta ugu weyn ay tahay in Guuleedsinba heesihiisa oo dhan uu ku amaano gabdhaha Soomaaliyeed, taasina ay keentay in 80% dadka daawada ay yihiin hablaha xiiseeya fanka. dunida aynu joogna waxa u badan dumar. Guuleedsinba ayaana gabdhaha taageero ku helay iskoor ku cusub indhaha YouTube-leyda Soomaalida kaasoo ah 1 week 1 million. guud ahaan barnaamijkeena gaarka ayaan ku eegnay Guuleedsinba iyo sababta uga taageeraha badan yahay fanaaniinta dhigiisa halka ayaan ku soo koobaynaa. waa bahdi Qalsooni Media isku duuban oo idin ballanteena waa subscribe sida iyo nabaday.